Ninkan ooyaya wuxuu ku jiraa marxalad adag, shalayto, niyad jab, quus iyo rajo beel, taasi oo uu ka dhaxlay daawashada aflaamta xunxun. Wuxuuna leeyahay waxaa waayay familkayga, asxaabtayda, ehelkayga, caruurtayda, isagoo ula jeedo inuu waayay cid walba oo u dhoweyd. Waana mirihii uu ka dhaxlay daawashada aflaamtaas. Haddaba taasi waa waxa sugaya qof walba oo daawada aflaamtaasi. If you allow your mind to wander and to fantasize and to think things, I promise you that you are not just hurting yourself, that you are hurting everyone in your life. Waa maxay caadada xun ama isnuugida? Isnuugida ama caadada sirta ah ama al-istimnaa fiqi ahaan marka laga hadlayo waa fal uu qofka sameynayo isagoo keligiis ah si uu u gaaro dareenka galmada wax u dhigma, isagoo ku ciyaaraya xubintiisa taranka ah si ula kac ah ama adeegsanayo waxyaalo kala duwan. Waxyaabaha qofku ku riixayo inuu sameeyo caadadaas xun waxaa kow ka ah daawashada aflaamta xunxun. Diimaha kala duwan, kuwa samaawiga ah sida diinta Islaamka, Yahuudiga, Masiixiyadda iyo kuwa wathaniyaadka ah oo ay dadku samaysteen, dhammaantood waa ay xarimeen samaynta caadadaasi xun. 1975 Faatikaanka Rooma waxay soo saareen warbixin akhlaaqiyaad guud ah oo ay ku sheegayaan in caadadan ay tahay ficil aanan wanaagsanayn, bahdilaad ah, nafta bini'aadanka aanan u fiicnayn, oo ay nijaasaynayso jirka, qofkana dareensiinayso inuu liidnaan iyo dulinnimo. Qofka marka uu sameeyo caadadan wuxuu galayaa dhowr saac oo lagu qeexi karo saacado shalayto, murugo, ciil, dareemidda tabardari iyo rajabeel. Haddaba caadadan waxaa laga dhaxlayaa dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin inuu qofka dareemo murugo, shalayto, fikir joogto ah, tabardaro, caajis iyo inuu qofka rabo inuu jiifo sariirta uun iska saarnaado, uusan waxba qaban, waxna qabsan karin. Maqanaan dhinaca maskaxda ah, taasi oo keeni karta ilaawid joogto ah, sida qofka inuusan xasuusan karin waxyaabaha uu akhriyay waxyar ka hor, saacado ka hor waxyaabaha uu akhriyay inuusan dib u xasuusan karin, isla markiina uu ilaawo. Taasina ay sababto inuu ku fashilmo waxbarashadiisa. Dhabar xanuun joogto ah iyo maskax xanuun sidoo kale waxay jilcisaa xubnaha taranka ah qofka sameeyo caadadaas. Waxaana ka dhalan kara inuu qofku ku fashilmo guurka isagoona xajin karin dareenkiisa. Arrinkaas oo qofka dareensiinayso inuu yahay qof daciif ah oo aanan wax qiimo ku lahayn marka uu dhex fadhiyo bulshada, heer uu qofka gaaro inuu naftiisa liido. Sidoo kale qofka mar walba uu u sameeyo caadadan wuxuu ku dhaartaa inuusan dib dambe u samayn doonin, haddana muddo yar kadib wuu ku laabtaa arrinkaasi. Haddaba sidii aad ugu gudubtid caqabadaasi xun, waxaa kula gudboon in aad go'aan dhab ah qaadato oo aad nafsadaada ku xakamayn kartid adigoona Allah subxaanahu wa tacaala tala saaranayo, sida inaad soontid, salaadaha waajibka ah ilaalisid, kana fogaatid daawashada aflaamta xunxun iyo keliya ahaanshaha qofka oo keligiis meel cidlo joogo, iyo daawashada sawirrada qaaqaaban iyo waxyaabaha aanan wanaagsanayn. Sidoo kale waxyaabaha qofka kor u qaadayo jir ahaan iyo maskax ahaan waxaa ka mid ah samaynta jimicsiga, sida inuu qofka aado jiim, kubad ciyaaro. Waxaa hubaal ah qofkii iska daayo muddo yar gudaheeda
inuu awoodiisa jir ahaaneed iyo firfircoonidiisa dib u helayo. mawduucan intaas ayuu ku egyahay. intaan mawduucan mid lamidna aan ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.